بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبين waxaan rajeynayaa inaad wanaagsan tihiin. Gabar ku kortay agoonnimo ayaa hadda koor hooyadeed waxay damacday markii ay qaan gaartay inay u guuriso si uu hel iyo mustaqbal iyo caruur Ilaahay u siiyo. Waxaa lagu daray wiil ay ilmaadeer yihiin gabadhii agoonta ahayd. Laakiin nasiib darro guurka kadib waxay kala kulantay mashaakil qoys oo aad buu ninkii u dhibaateeyay gabartii agoonnimada ku kortay. 24 saac way iska oysaa waxaana dhibaya waa ninkeeda iyo qoyskii uu ka dhashay. Cidda kaliya oo ay ku oyso dhabteeda ama korkeeda waa hooyadeed oo waxaan badnayn meeshay degan tahay u jira. Hooyadii way xanuunsatay, gabadhii way la dardaarantay markii geerideedii soo dhawaatay. Waxay ku tiri hooyoy cid kaloo kula oyso ma garanayee oo xusniga iyo murugada kula qaybsatee markaan dhinta kadib sajaayadeydaas meesha saaran 2 ragca ku duko inta weyse qaadato mar alla marka mashaakil aad la kulanto. Hooyadii way dhimatay, gabadhiina waxay qaadatay dardaarankii. ninkii toddobaadkii koowaad waa geeridii hooyadeed mashaakilkii aadka ayuu isku sii shareeray, waaba looga sii diray. marka taladii ay qaadatay toddobaadkii mar ayaa caag weyse ah gurigeeda inta ka soo qaadatay waxay timaadaa guriga hooyadeed ay ka geeriyootay ee sajaayada u tiile. meeshaasay 2 ragca ku dukataa, sujuudana ku oysaa, Ilaahayna u bandhigataa dhibaatada haysta. sidaas muddo markay waday ayaa bini aadamku waa dhib badan yahay. waxay yiraahdeen wariyaa gabadha way ku khiyaantaa oo toddobaadkii mar ay gurigan cid ay kula kulanta ma garanaynee ay ku soo dhuumataa. marka isku ogow xaalkeeda. ninka wuxuu sameeyay gabadhii wuu soo dhuuntay, markii ay guriga soo aaday meel buu ugu dhuuntay, sheeduu ka fiiriyey. saawo waa weysaysatay, 2 ragca ayay dukatay, sujuud ayay ku oysay, Ilaahay ayay dacwadeeda u bandhigatay. markuu xaqiiqsaday in gabadhan waxa guriga u soo aado dadkan ay ku tuhmayaan ay tahay alla bariga iyo ducadeeda in Ilaahay ay u bandhiganayso ayuu xaqiiqsaday. salaada markay ka baxday wuu la ooyay, wuu ka raali geliyay. wuxuu yiri raali noqo walaalay, waan maqlayaa ducadaada, mashaakilkii aan kugu hayana laga bilaabo hadda waan ka joojiyay. habeenkii markay reerkooda ku laabteen ayay manaamka ama riyada waxa ugu yimid qof dhahaya 10 sano ayaa dacwadaada qofka kugu dhow aad u sheeganaysay, bil gudaheed oo Ilaahay aad u bandhigatayna wuxuu ku siiyey xaaladaas isbeddelka ah ee sidaas u wanaag badan. marka Ilaahay dacwadaada u bandhig oo bini aadam waxba waqtigiisan ka lumin. xigmadda sheekadan ku jirta waxa weeyaan mar walba oo murug arrinku cuslaysaa sujuudda rabbi ha mugaanin iyo ducadaada dacwadaadana Ilaahay u bandhigato. Assalaamu calaykum.